codkiisa oo dabacsan, luuqdiisa oo la jaanqaada muusikada iyo jilliinka qoobka ciyaarka ayaa laga yaabay in ay ahaayeen qaar ka mid ah sababaha soo jiitay taageerayaal badan. isagana markaas sumcad ayuu u arkayey in uu heesaa ahaado. waxa uu ka mid ahaa hobalada sida degdega ah magaca uga sameeyey fanka Soomaaliyeed. Axmed Cabdikariin Maxamed Biif jacaylka iyo wadaniyaddaba wuu ka heesay. inkastoo hadda uusan ku faraxsanayn in la daaro heesihiisa, haddana dalsan ahaan wuu naga ogolaaday in aan warbixintan u isticmaalno. Axmed Biif oo magaciisa hore u beddelay Axmed Khayr 5 bilood ka hor ayuu ka soo muuqday baraha bulshada isagoo ku sugan guriga Ilaahay, una muuqda mid ka qoomameeyey hiwaayadiisii uu muddo soo waday. waxa uu u soo guuray dalka, gaar ahaan miyiga Muqdisho, si uu u barto culuumta diinta Islaamka. booqasho ayaan ugu tagnay si aan ugu kuurgalno noloshiisa, uguna soo qaadno dhambaal. halkan waa hoyga uu ka degan yahay markaska Axmed Cabdikariin Maxamed oo aad u taqaaneen Axmed Biif. waxaan hadda u tagi doonaa Axmed si markaa aan wax badan uga ogaano nolosha hadda uu ku nool yahay kadib ka bixitaankii fanka. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو إيد لصاحب. أجيد ودوحي أحمد أيها هذا يقصد دوي هلك ودقين هاي وأهل كان أحمد وحاولنا وش كان دونا وحياة بدن أو قصية نولشيسة. والله وان فكري كل جيبان مالك فكري وحنا جوان كوجارينا فكر إسكتايو إن عبادة إلهي يقول لحظة إن أنا مرضى ببلن قاد رسمية aan ilaahay rabbi subxaanahu wa tacaala la galo inaanan mar dambe ku laaban. dhowr mar ayuu soo cumraystay, haddana rajo ah inuu xajiyo ayuu leeyahay. waxa uuna aaminsan yahay hadda inuu cagta saaray waddo ka wanaag iyo khayr badan tii hore. wallaahi wax weyn baan saaxiib dareemay. runtii waxa weeyaan maantay iyo maalintii hore isla mid maahi. farqi weyn baana ii dhaxaya hadday noqon lahayd dhinaca diinta, waayo wax weyn baan faa'iidaystay. walaalkay oo haddana xajkii weynaa insha allahu tacaala shirkadda amal express baa ii ballan qaaday xajka weyn sanadka aan tegi doonaa insha allahu tacaala. arrintaasu confirm weeye. ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu carruurtooda iyo xoolahoodaba insha allahu ilaahay u barakayo. halkan oo ah maktabadda ku dhex taalla xarunta uu Axmed xirta ku yahay, si joogto ah ayuu u yimaadaa si uu akhristo kitaabo kala duwan oo halkan yaalla. anigu waqtiyadaasi waqtiga duruusta lagu jiro iyo waqtiga kale kala tahay. marka waqtigaas un duruusta aanan lahayn ama maartay time tabikayda aan maartay waqtiga kale aan nimaadna. hadda saaxiibadiisii hore ayuu u rajaynayaa in ay la midoobaan oo ay qaataan go'aankiisa oo kale. fanaaniintii walaalahaygii aan ku dhex jiray waxaan leeyahay horta walaalayaal, horta waxa kana waa adduunyo, waana laga tagaya. qofku taariikh baa qof walba ka haraya. waxa weeyaan haddii fan lagu wax keenayo dad ina ka horreeyay baa wax ku keeni lahaa. marka waad aragteen shalay oo maalmo dhaweyd beri dhaweyd waxaa dhintay ninkii boqorka maaragtay maxamed salabaan tabiic waa dhintay. maxamed axmed kuluc waa geeriyooday. sidoo kale cumar dhuule cali waa geeriyooday. fanaaniintii waxba kama harin. dadkii waaweynaa oo inoo ka hawl badnaa hawshaas horta way tageen. maantay idinku jaanis baad haysataan. rabbi subxaanahu wa tacaala toobadu way furan tahay. waxaa la rabaa qofku maanta intuu fursad haysto inuu ka faa'iidaysto oo uu ka noqdo. sooraan waad aragteen. sooraan wuxuu ku dhintay isagoo oo masaajid mu'adanka ah oo wanaagsan. rag badan baa ka baxay oo cabdullaahi sulfa uu ka mid yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala riyaad jooga. waxaa ka mid ah cabdulqaadir kaskey nin la yidhaahdo oo holland degan runtii oo aan garanayo anigu, wuu ka baxay isna. intii ka baxday waxaan u rajaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inaan ku soo celin qurunka iyo balaayada. marka waxaan leeyahay walaalayaal, inta goor tahay ka soo baxa oo waxa weeye annaga noo imaada oo kaalaya oo aniga ii kaalaya oo ila soo dega oo wayna soo dhoweynaya oo diinta barta. xaaladdiisa maanta ayaa gebi ahaanba ka duwan tii hore. waxa uuna ku faraxsan yahay noloshiisa cusub oo leh rajooyin wanaagsan.
laakiin ma hubo haddii uu tusaale u noqonayo saaxiibo badan oo la dhacsan fanka. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما قوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى صدق الله العظيم. maxamed cabdi xasan iidle idaacadda iyo telefishinka dalsan